السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا وركا شاريبو شو او دق اه haddaad ka cusub tahay channelkana subscribe ka saaro si mar walba qubanaha shaariba show aad ula socotid adiga oo gurigaaga iyo mobilkaaga dhex fadhiya aad mar walba aad u dhageysatid lana sii wadaag asxaabtaada oo sii share gare halkani waa shaaribo show markale iyo kulanti wacan asxaabta qaaliga ah in allaalay intii subscribe hore u saarteen waxaa leenahay aad iyo aad ayaad u mahadsantiin warar degdeg oo haddana soo gaaray ayaa sheegaya in maamul goboleedyada xubno ka socda iyo xubno ka socda dowladda federaalka ay waqtigeedu u dhamaaday baydhabo isugu tegi doonaan maalmaha soo socda iyadoo hordhac u noqon doona wada hadal laga yeelan doono qaabka doorashada iyo qaabkii isku soo dhawaan lahaa iyadoo aan beesha caalamku aysan soo dhaxgelin ama aysan soo fargelinin oo Soomaalida arrimaha dhexdooda ay dhameystaan shirkaasi ayaa lagu qaban doonaa magaalada Baydhabo usbuucan bilaabanaya hadii Ilaahay idmo lagana yaabo maalinta Isniinta ah oo bisha 15 ay tahay bisha Febraayo 2021 in halkaasi la isku tago warkan oo ila xoogaan aynu ka helnay oo Shaariba Show TV soo gaaray ayaa sheegaya in mid laba xubnood oo ka socda maamul goboleedyada iyo laba xubnood oo ka socda dowladda federaalka ay waqtigeedu u dhamaaday in halkaasi ay shir hordhaca ay ku yeelan doonaan warka ayaa sheegaya in magaalada Baydhabo halkaasi ay u diyaar garoobayso martigelinta shirkaasi oo muddo laba maalmood halkaasi ka dhici doona oo ka socon doona dhinaca kale maamulka Jubbaland ayaa ku adkaystay oo soo jeediyay in muddo 60 cisho gudahood ah looga saaro gobolka Gadow ciidamadii ay dowladii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaasi ay ku soo daabushay waxayna sheegeen in magaalooyinka Doolow Buulaxaw iyo Luuq si degdeg ah ciidamadaas looga saaro hadii kala Jubbaland aysan ka qayb gali doonin shir halkaasi ka dhaca shuruudan adag ee Jubbaland keenta ayaa ah caqabad cusub oo soo food saartay isla shirka Baydhabo lagu qaban doono taasoo Jubbaland ay hordhac ahaan u sii sheegtay in aysan ka qayb gali doonin iyadoo madaxweyne Axmed Madoobana uu ku adkaystay in ciidamada halkaasi laga saaro oo ahaa qodobadii la isku mari waayay shirarkii Dhuusamareeb ka dhacay iyo Muqdisho Sheekh Axmed Madoobe hadlay wuxuu yiri farmaajo wax kasto aan ku heshiino uu ka baxay wax kastana oo shir hol isku yimaadana asaga ka dambeeyay inuu fashiliyo asagoo mar halkaasi kula hadlaya saxaafadda hooygiisa qasriga madaxtooyada ee magaalada Kismaayo ayuu sidaas sheegay madaxweyne Axmed Madoobe haddaba wixii ka soo kordhay shirkaasi hadii Ilaahay idmo Baydhabo ka furmi doona waana soo wadaagi doonaa insha Allah biidnillaahi kariim subscribe si saaro si aad nala socotid wararkii ugu dambeeyay intaas ayaanu ku soo koobaynaa warkii degdega ahaa ee soo gaaray ee ku saabsanaa in shir uu Baydhabo ka dhici doono asbuucan bilaabanaya oo hordhaca oo laba xubnood oo maamul goboleedyada ka socda iyo dowladii waqtigeedu dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ay halkaasi isugu tagi doonaan iyo shuruuda Sheekh Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland uu ku xiray shir walba oo la yeelanayo iyo qaabkii looga hadli lahaa doorashooyinka والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته